بسم الله الرحمن الرحيم ومقعي عبد القادر محمد علي وكشقي قلada wargeysada kamid ah oo gobolka Banaadir waxaan ka shaqeynay dhowr sano bilood xilliga fooriyowga iyo xilliga kale ka shaqeynay waxaan ka soo qaaday subaxdii ilaa iyo xarunta xawgaal oo ku taalo degmada Halwadaag aan ka soo bilaabay shaqada ilaa waxaan ku imaaday siidka ilaa iyo lambar 4 ilaa iyo xamar weyne marka dadka waxaan ka seenaa qaarna waxay naga siiyaan 3000 qaarna 4000 qaarna waa naga akhrisadaan marka isku celcelis ahaan intaasaan waxaan ugu raadinaa cidda biilkooda marka meel kale wax naga soo dhacana ma jiro awalna wuxuu ahay waxaan qaadi jirnay 100 xabo waxaan ahayn dhowr shaqaale ahayn oo gaarayso cadadkiisa ilaa 20 ruuxood maanta waxaan ku soo hirnay 4 ruuxood halaasna waxaa keenay meediga iyo internetka aad u batay marka awal wuxuu soo bixi jiray 12 saacada subax ka hor magaalada Muqdisho ku jiri jiray xilligaas wuxuu ahay meediina waa yaraa internetkana waa markaas ma jirin waa yaraa laakiin wargeysada aad loo gadanayo haatan wax u badan odayaasha iyo aan naga gataan iyo qolo oo macaamiil aan leenahay oo nagu dhaqaaleeyaan marka magaalada Muqdisho waa iska ciidad bateen waa iska TV aad u badan yihiin waxaa joornaalka dilay website-ka badan maadaama oo yahay awal wuxuu soo bixi jiray social media iyo website-ka aad u soo batay awal wuxuu soo bixi jiray dhowr joornaal sida xawgaal xogdoon mid kale oo Muqdisho Times la yiraahdo waa badii wargeysa soo bixi jiray halka waxa soo baxan oo joogto u soo baxan waa xawgaal iyo xogdoon u soo baxan marka waa joornaal lagu akhrisaday badinaha waa joornaalkan oo inta sano laga gadi jiray oo laga shaqeey jiray oo rag badan ka shaqeey jireen maanta waxaan ku soo hirnay 4 ruuxood aan joognaa marka waxaan ku bilnaa ilmaan ku bishtaa ilaahay dhaafo biilkayga kulmaankii maalintii waa ka helaa ilaahay waa iga sahla waxaan ahay aabo oo ku hoosto 6 aroorad iyo hooyadood alxamdulillah waa biilkayga ilaahay waa iga siiyaa asxaabteedana waa i dhaqaaleeyaan intaas shaqadeena ay tahay aan ku noolnaad ilaahay